bismillah waa inay salaamay telefishinka qaranka Soomaaliyeed sidoo ay wareysanaysaan iyo shirka ka soconaya magaalada Muqdisho waxa aan u arko waxa weeye shirku sida haddeer uu ku socdo meelo fiican ayuu marayaa sidoo kale madaxweynihii jamhuuriyadda Soomaaliyeed uu tanaasulay oo ka tanaasulay ansixintii baarlamaanka ay ansixiyeen jadwalkii doorashada lagu aaday labada sano ahaa sidoo kaleeto shirka shuruudihii waa laga diiday ku xireen maamulada Jubbaland iyo Puntland sidoo kaleeto waxaa lagu cadaadinayaa inay saxiixaan heshiiskiina sidaan xogta hadda ku hayno wuxuu marayaa meel fiican oo aad u wanaagsan intaas ayaan u sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed waxaanu leenahay waxaad ogaataan in shirkaas ay kasoo baxayaan guulo aad iyo aad u waaweyn laakiin mid baanu kasoo horjeednaa waxa weeye in mucaaradkii laga soo qaybgeliyey shirka nimankii ahaayo Sheekh Shariif Xasan Sheekh Maxamuud xilligii ay madaxweynaha ahaayeen dee waad ogeydeen mucaaradku bannaanka ku joogay shirka ninkii madaxweyne ah ayaa saxiixayay suudaan yeelayay inay maanta dowladdii ay ku qabsadaan oo dhahaaneen sida aan rabno waxay wax u dhacayaan maahan waa laga fiican yahay waxaanu leenahay marka xoogaa halkaa dhaliil baanu ka aragnaa laakiin shirka qodob fiican ayaa ka soo baxaya waxaanu leenahay waxa ay ku hadlayaan annagu ma danaynayno mana sugayno mucaarad shalay markuu xilka hayay waxyaalihii uu ka diidayay musharaxiinta maanta inuu la yimaado isagoo musharaxa wax loo baahan yahay maahan waxaanu leenahay marka ummadda Soomaaliyeed hambaliyo waanu leenahay sidoo kale taalkan waxaan kaga faa'iidaysanayaa jaaniskan aan kaga faa'iidaysanayaa maadaama khadka suunka ay soo wacdeen shirkan waxaan kaga faa'iidaysanayaa sidoo kaleeto walaalahan Falastiin ayaan kaga faa'iidaysanayaa Falastiin waa loo jeedaa qaabka loogu dhaqmayo ay yuhuuddu ugu dhaqmayso ugu gelayso ay ugu laynayso macnihii carabtuna iyadaa halkaa isdhigtay waxaanu leenahay marka Turkiga haddeer ugu tumayn dowladaha islaamka uga hadlayna aad iyo aad baan ugu ammaanaynaa usoo dhaweynaynaa waxaanu leenahay marka in muslimiintu ay u midoobaaneen diintooda u midoobaaneen riyadooda intaba ay u midoobaaneen sidoo kaleetana masjidka macnihii wuxuu ka dhexeeyaa Soomaaliya oo dhan Falastiin gaar uma leh muslimka oo dhan buu ka dhexeeyaa wixii muslimiin ah ayuu ka dhexeeyaa masjidkani baytullaahi weeye waa kabcadii labaad marka waxaanu leenahay ummadda muslimiinta ha ka dagaalameen qaabka yuhuuddu ay ula dhaqmayso walaalaheen ha ka dagaalameen sidoo kaleeto waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda uga fakraqaatay iyo wixii islaam oo ka dhaqanaaday aad baan idin salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogtaaniin maantay ay tahay taariikhdu 22 bisha aad iyo aad 22 May aad iyo aad baan jeclahay inaan ugu hambaliyo ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan hambaliyo ayaan leeyahay hambaliyo ayaan leeyahay aad baan idin salaamayaa. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.